munaasabadda maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka awgeed ayaa qaramada midoobay waxay sheegtay inay xoojinayso doorka firfircoon ee howlwadeennada warbaahinta ay ku leedahay Soomaaliya iyo waliba caalamka intaba. waxayna xaqiijinaynaa awoodda sida loo shaqeeyo si ay u gutaan waajibaadkooda si xornimo dheeraad ah. warbaahinta Soomaalida ayaa waxay qayb muhiim ah ka tahay kobaca dimuqraadiyadda, waxayna u baahan tahay in awood u yeelato inay u shaqeyso si xur ah oo aan lahayn hanjabaad, cagajugleyn iyo waxyeeleyn si u gudato howsheeda muhiimka ayuu yiri ergeyga gaarka ee qaramada midoobay xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya James Swam. suxufiyiinta ku sugan Soomaaliya wali waxay la kulmaan hanjabaadyo halis ah, jirdilo, dhacdooyin badan sida tan bishii Maaj ee sanadkii hore hal suxufi ayaa la dilay, 2 kalena waa lagu dhaawacay. wuxuu intaasi sii raaciyay in 64 suxufi iyo shaqaale warbaahineed la xiray iyagoo gudanaya waajibaadkooda ayuu yiri James Swam. golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay ayaa ku dhawaaqay maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka sanadkii 1993 iyadoo 3 Maaj loo asteeyay xuska sanad guurada baaqi Wandong kaasoo ahaa in bayaan taariikhi ah oo ku saabsan xiriirka u dhaxeeya xorriyadda raadinta iyo gudbinta hadlidda xorriyadda danta guud. maalintan waxay xasuusin u tahay dowladaha la soo xusuusiyo baahida loo qabo in la ixtiraamo hadalka isla markaana si xorriyad leh ee u shaqeeyaan warbaahinta. sidoo kale in la xuso mabaadi'da asaasiga ee xorriyadda saxaafadda, qiimeynta xaaladda ku sugan yahay dal kasta oo adduunka ka mid ah, in la difaaco xorriyadda, in aan weerar ka dhana lagu qaadin si madax bannaanida iyo suxufiyiinta loo ixtiraamo. Soomaaliya ayaa waxaa ka jira dhibaatooyin xooggan oo loo geysto saxafiyiinta haddii ahaa lahayd jirdil, xarig, handadaad iyo weliba in shaqooyinkooda laga hor istaago. ururada u dooda xuquuqda suxufiyiinta Soomaaliya ayaa intooda badan waxay ka hadlaan dhibaatooyinka loo geysto walow inta badan aan waxba laga soo qaadin hadalkooda. xeer saxaafadeed oo muran xooggan uu ka jiro oo dowladda Soomaaliya ay meemaraysa ayaa jiro welina doodiisa ay taagan tahay. Bimaalow Center moolka Bimaalow bari dhaweyd anoo baawur saaran waxaan meel fog ka bidhaansaday boor ay ku qoran tahay Bimaalow Center. xog balaaran ma naga siin kartaa? haa, moolka Bimaalow oo bulshadu ay bilooyin badan sugayeen ayaa albaabada loo furay. ma xarunta ganacsiga ee Bimaalow? baashaal ha u malaynaya baana hawaasnimo bilaash maaha hadalkaygu. Bimaalow Center waa mool baaxad weyn oo boqolaal shay oo kala nooc ah. barta aad ka helayso qiimuhuna boqonogoys maaha, tayadu waa mid la hubo 100% bulshadu ay u bogeen. wax kastoo baahidaadu tahay badeecatii u dambaysay beledkeena looga adeegto, ha ahaato electronic baakadaysan, wax kastoo suuq looga baahdo, bakeeriba ha u yaraato, waa barta aad ka helayso. Bimaalow Center. moolka Bimaalow waxa uu ka kooban yahay dukaamo casri ah oo qaab heer sare ah loo qaabiyey, waxayna ku hayaan alaab tayo sare leh, maacuun noocyadeeda kala duwan, qalabka electroniga sida qasaaladaha, frinjeerka, kuukarka ama qalabka cuntada lagu kariyo iyo wax walba oo guriga lagu isticmaalo. waxyaabaha ay dumarku isku qurxiyaan, make-up tayadiisu sareyso iyo udug nooc kasta leh. dharka dumarka waa labiskii u dambeeyay oo quruxdaada soo saaraya. qaybta qalabka ceelasha iyo tubooyinka, wax kasta oo aad u baahan tahay waxa aad ka soo dukaamaysan kartaa Bimaalow Mall adiga oo aan la soo kulmin ciriiriga suuqyada, kulayl iyo rafaad. waqti badanna uusan ka lumin, qiimuhuna waa mid aan ku eriyay. Bimaalow Center xarunta ganacsiga ee Bimaalow barta uu ku yaalo waa afaafka hore ee suuqa Bakaaraha iyo agaarka masjidka barakaysan ee Macalin Bimaalow.